kaalmo malaayiin dollar ah oo deeq-bixiyaasha caalamku ay siin jireen wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya muddo sannado ah ayaa lagula kacay musuqmaasuq kadib markii hay'adaha deeqda bixiya ay ku guuldareysteen inay lacagahaasi soo marsiiyaan qasnada dhexe ee dowladda. sidaasi waxaa barnaamijka galka baarista u sheegay saraakiisha dowladda Soomaaliya. lacagta ka timid deeq-bixiyaasha ayaa soo maraysa laba hay-adood oo ka tirsan qaramada midoobay oo lagu kala magacaabo United Nations Population Fund iyo hay'adda UNICEF iyo hay-ad saddexaad oo lagu magacaabo World Vision. saddexdan hay-adood ayaa lacagtaasi ku shubayay account ay leedahay wasaaradda caafimaadka oo ay maamulayeen saraakiil ka tirsan wasaaraddaasi. lacagtan ayaan la marsiinin qasnada dhexe ee dowladda isla markaana aan lala socodsiinin hay-adaha maaliyadda dowladda Soomaaliya. sidoo kalena laguma darin miisaaniyaddii ay baarlamaanku ansixiyeen sida ay kala duwan u sheegeen barnaamijka galka baarista. haddaba sidee ayuu u dhacay musuqmaasuqan? maxay hay-adaha caalamigu ugu guuldareysteen inay ogaadaan musuqmaasuqa lagu sameeyey dhaqaalaha badan ee ay siinayeen wasaaradda caafimaadka? sidoo kale maxay wasaaradda caafimaadku ugu guuldareysatay inay ogaato xatooyadan oo la sheegay inay socotay muddo sannado ah? maxkamadda gobolka Banaadir waxay bishii August bayaaqadeedii xukunno u dhaxeeya 3 sano ilaa 18 sano ku riday 4 sargaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya kadib markii lagu helay xatooyo xoolo dadweyne. saraakiishu waxay kala ahaayeen agaasimihii maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda Maxamuud Buule Maxamuud oo lagu xukumay 18 sano oo xariga, Mahdi Abshir Maxamed oo ahaa madaxii xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka oo lagu xukumay 12 sano, iyo agaasimihii guud ee wasaaradda Cabdullaahi Cali Xaashi oo lagu xukumay 9 sano xariga. saddexdaas waxaa kaloo lagu ganaaxay min $2,366, waxaana laga mamnuucay inay mar dambe qabtaan xafiis dadweyne. waxaa sidoo kale la xukumay Bashiir Cabdi Nuur oo ahaa xisaabiyaha mashruuca malaariyada ee wasaaradda caafimaadka oo lagu xukumay 3 sano xariga, lana ganaaxay $1,183 iyo inuusan xafiis dadweyne qabanin muddo 5 sano ah. maxkamaddu waxay sheegtay in 40 sargaal lagu helay xatooyo xoolo dadweyne. haddaba sida uu ogaaday barnaamijka galka baaristu, dhaqaalaha la lunsaday ayaa ahaa mid ka yimid deeq-bixiyayaasha kuwaasi oo muddo sannado ah kaalmo siinayay wasaaradda caafimaadka si loogu kharash gareeyo barnaamijyada caafimaadka ee wasaaradda. hay-adahaasi caalamigii waxay lacagtaas ku dirayeen accountna ay wasaaraddu ka furatay bankiyo gaar ah. saddexdaasi hay-adood ee caalamiga waxay kala yihiin sanduuqa bulshada qaramada midoobay ama UN Population Fund oo 3 sano ugu dambeeyay siiyay wasaaradda caafimaadka lacag ka badan $3,400,000. hay-adda labaad waxay ahayd sanduuqa badbaadada carruurta UNICEF oo siisay 3 sano ee la soo dhaafay lacag ka badan $2,100,000. iyo hay-adda World Vision oo iyaduna wasaaradda siisay $575,000. lacagahan marka la isu geeyo waxay ka badan yihiin $6,100,000. sida uu galka baaristu ku helay macluumaad kala duwanna, lacagahan ka yimid deeq-bixiyayaasha ayaa ahaa kuwa uu ku dhacay musuqmaasuqu. lacagahanina ma ahayn kuwo loogu talagalay la dagaalanka COVID-19, balse waxay ahaayeen kuwo lagu waday shaqada mashaariicda ay ka midka yihiin caafimaadka haweenka iyo dhallaanka, malaariyada, HIV iyo kobcinta wacyigelinta caafimaadka. Maxamed Maxamuud Cali Afgooye waa hantidhowraha guud ee qaranka, xilkaasi oo uu hayay muddo haatan ku dhow 4 sano. waraysi gaar ah oo uu dhacdadan ka siiyey galka baarista waxa uu ku sheegay sidan: waxaa jira xiriir weyn ama ballaaran oo ka dhexeeya xatooyada ama musuqa dhacay ee ka dhacay wasaaradda caafimaadka iyo lacagaha deeqaha ee aan ku jirin miisaaniyadda dowladda, sidoo kalena aan ku soo dhicin khasnada dhexe ee dowladda. run ahaantii dhowr qodob ayaan isleeyahay way sababtay ama dhalisay xiriir ka dhexeeya xatooyada dhacday iyo lacagaha deeqaha ee aan ku jirin miisaaniyadda. qodobka koowaad ayaa ah hubin la'aan waa arrinta run ahaantii saamaynta lixaadka leh dhalisay in lacagaha intaa la eg la maamul xumeeyo ama la musuqo weliba sanado badan. haddii lacagahaas ay soo mari lahaayeen hanaanka miisaaniyadda dowladda, waxaa hubin lahaa wasaaradda maaliyadda oo budgetkoodii u samayn lahaa, xafiiska xisaabiyaha guud oo kharashaadkii baxaya ka warhayn lahaa, xafiiska hantidhowrka guud oo run ahaantii korjoogtayn ama oversight ku yeelan lahaa
iyo bangiga dhexe oo lagu maamuli lahaa lacagtaas. balse maadaama aysan soo marin waxaa sahlanaatay in la maamul xumeeyo ama la masuqo lacagahaas oo aan ku jirin miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliyeed. qodobka labaad ee iyadana sababtay in xatooyo ama musuq uu dhaco ayaa ah korjoogteyn la'aan. run ahaantii haddii hay-adaha dowladda ee kala duwan ee doorka ku leh maamul wanaagga iyo korjoogteynta maaliyadda dowladda aysan lacagahan deeqaha ee ka baxsan maaliyadda si joogto ah uga warqabin, waxaa sahlanaanaysa in arrinkaa ay ka faa'iidaystaan shakhsiyaad dana gaar ah leh, kuwaas oo si sharci darro ah run ahaantii ugu takrifala deeqaha ka yimid dibadda oo aan ku jirin miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kalena aan ku soo dhicin khasnadda dhexe ee dowladda. ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa horaantii bishii Abriil ee sanadkan galay xafiis ku yaala degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. xafiiskaasi waxaa ka shaqaynayay shaqaale ka mid ah wasaaradda caafimaadka, inkastoo xafiiskaasi uusan ku oolin isla markaana u dhoweyn wasaaradda caafimaadka. macluumaadka ku saabsan kiiskan waxaa badankiisa laga helay xafiiska qarsoodiga ah ee ku yaala degmada Waaberi. waxaa laga helay magacyada iyo dokumentiyada shirkado iyo ganacsiyo gaar loo leeyahay oo jira iyo kuwa aan jirinba. sida ay la kala duwan u sheegeen galka baarista, waxaa mas-uuliyiinta dowladdu ay gacanta ku dhigeen waraaqo iyo dokumentiyo maaliyadeed oo lagu bixiyey lacag dhan $6,111,000. dokumentiyadaasi ayaa ahaa kuwo aan mar keliya lagu bixin lacagta, balse waxay soo taxneed xatooyadani muddo sannado ah, gaar ahaan sannadihii 2017, 2018 iyo 2019. lacagahaasi oo ka baxay akawnka wasaaradda islamarkaana la siiyey shirkado iyo ganacsato aan intooda badan jirin oo magacooda lagu been abuurtay si lacaga loogu qaato kadib markii la samaystay waraaqaha lacag qabashada, kuwa lacag bixinta, kuwa xaqiijinaya inay adeegaasi qabteen iyo tiimbarayaal. baaritaanka guriga ku yaala degmada Waaberi waxa uu dhacay 4tii bishii Abriil ee sanadkan, waxaana hay-adaha amnigu ay heleen tiimbarayaal, buugaagta qaansheegashada, warqadaha lacag bixinta, galal, kombiyuutarro iyo qalabka daabacaadda. dhammaan agabka la helayna waxay fududeeyeen inay dhacdo xatooyadaasi. muunad laga qaaday baaritaanka 17 shirkadood oo ka mid ahaa 151 shirkadood iyo shakhsiyaad la aaminsan yahay in magacooda lagu xaday lacagta deeq-bixiyayaasha ayaa lagu ogaaday in la dhacay dhammaan lacagtii ku qornayd risiidyada oo ahayd in ka badan $476,000. mid ka mid ah shirkadaha aan magac ahaan u jirin balse si been abuur ah loo sameeyey magacooda laguna qaatay lacago badan waxaa ka mid ah shirkad lagu magacaabo Asli Vegetable Meat Supplies. sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud, magaca waxaa laga keenay haweeney ka mid ah garab raratada magaalada Muqdisho ee la halganta helitaanka nolol maalmeedka qoyskeeda. kambanigaas hadda idin muuqda waxaa la yiraahdaa Asli Vegetable and Meat Supplier Center. waxaa iska lahayd oo xafiiska xeeraha guud horgeeyay marqaati ahaan horgeeyay lagana yaabo inaad ka daawateen warbixinada ka baxay warbaahinta in laga dhigay kambani jira. waxaana magacaan iska Asli magac waxa weeye maamo xaafadaha xamar ka tirsan degan oo meel hilib ku iibsata. waxaa laga dhigay inay tahay kambani weyn, lacaga tiro badan oo aad u tiro badan baana lagu isticmaalay iyadoo laga dhigay kambani jiray. waxaana loo report gareyn jiray lacagahaas hay-adaha mashaariicda lacagta lagula jiro. magaca shirkadda Asli Vegetable and Meat Supplies waxaa wasaaradda caafimaadka looga qaatay lacag ku dhow $114,000 sida uu ogaaday galka baarista. lacagahaasi oo ahaa kuwii ay bixiyeen deeq-bixiyayaasha. waxaa kaloo ka mid ahaa shirkad lagu magacaabo Colow Market oo iyadana magaceeda lagu qaatay lacag ku dhow $106,000 sida uu ogaaday galka baaristu. waxaa kaloo ka mid ahaa shirkad lagu magacaabo Daacad Carker oo iyadana magaceeda lagu qaatay lacag ku dhow $11,000. shirkadda Daacad Carker waa shirkad jirta, balse wax shaqaa uma qabanin wasaaradda caafimaadka. galka baaristu waxa uu la xiriiray mid ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda oo codsaday in sababa dhinaca amniga ah aan magaciisa la sheegin. wasaaradda caafimaadka wax contractiya ma jiraan oo wada shaqeyn ah oo toos una dhaxmaray sanadada la soo eedeeyay 2017 iyo 2018. goormaad ka war heshay in shirkadaadu ay ka mid tahay shirkadaha magacooda lacag looga bixiyey qasnada wasaaradda caafimaadka? waxaan ogaanay markii xeer ilaalintu noo soo qortay waraaq xeer ilaalinta iyo hanti dhowrka qaranka waraaq ay toos anka nagu socotay oo la hayay inuu cisaayeen inaan soo gudbino wixii macluumaad ahay iyo shaqeyn ama documentiyada wixii wada shaqeynahay in dhaxmaray annaka wasaaradda caafimaadka.
mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya waxay sheegeen in haddii baadhitaan dhow lagu samayn lahaa lacagahan iyo mashaariicda lagu bixinayey in si dhib yar loo ogaan kari lahaa goor hore musuq maasuqa socday sababtoo ah shirkadaha badankoodu ma ahayn kuwa u diiwaan gashanaa dowladda islamarkaana ma jirto canshuur ay siinayeen dowladda dhexe waxay sheegeen in saraakiisha ugu sarraysay wasaaradda caafimaadku ay si dhib yar ku ogaan kari lahaayeen musuq maasuqa galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiirka caafimaadka Foosiye Abikar oo iyada aan loo jeedinin wax eeda ah oo ku saabsan xatooyada dhacday hase yeeshee wasiirku kama aysan soo jawaabin codsigii waraysiga ee aan u gudbiyey mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay la xisaabtameen shaqaalihii ku lugta lahaa xatooyadan hase yeeshee waxay isweydiiyeen cidda la xisaabtamaysa deeq-bixiyayaasha lacagaha ku dirayay akawna aan ahayn khasnada dhexe ee dowladda waxaa xusid mudan in la sheegay in hay-adahan caalamiga ah ee deeqda bixinayay ay sanad walba soo dirayeen hay-ado audit ama baaritaan maaliyadeed ku sameeya wasaaradda caafimaadka hase yeeshee baaritaanadaasi sida muuqata ma soo saarin musuq maasuqii socday haddaba waxaa isweydiintu tahay sababta baaritaanadaasi madaxa bannaan ee matalaya deeq-bixiyayaasha loogu ogaan waayey musuq maasuqa socday sidee ayaa lagu xaday lacag gaaraysa $100,000 haddiiba aysan ahayn malaayiin dollar oo ay u ogaan waayeen deeq-bixiyayaasha caalamiga ah maxay tahay sababta ay hay-adahani u isticmaali waayeen bankiga dhexe ee Soomaaliya oo ay isticmaalaan bankiga adduunka bankiga horumarinta Afrika midowga Yurub iyo deeq-bixiyaal kale Dr. Cali Ciise waa madaxa macadka dhaqaalaha iyo siyaasadda bulshada ee Geeska Afrika HESBI oo horeyna Soomaaliya ugala soo shaqeeyay diyaarinta miisaaniyaddii ugu horreysay ee baarlamaanka la horgeeyo miisaaniyaddaasi oo ahayd tii sanadkii 2011-2012 si fudud baan u idhaahday hay-adda anigu waktigan maanta la joogo Soomaaliya joogto oo weli ku adkaysanaysaa waxaan bixinayaa deeq baan bixinayaa aan dowladda miisaaniyaddeedii sii marin ama ka muuqan oo aan sharcigii baarlamaanka la horgeeyay ka muuqan line item oo waxa weeye sababtay marka yaa ka daba tegaya yaa ogaanay qofka ay gacantiisa gashay maahayn miisaaniyaddiina kama muuqato baarlamaankiina ma ansixin marka waxa weeye waxa dowladda Soomaaliya ay ku dadaalaysaa qaramada adduunka ku dhaqmaan waxa weeye inuusan jirin wax la yidhaahdo off budget wax miisaaniyadda ka baxsan oo dowladda leedahay inaanu jirin waxaan ka hadlaynaa waa lacag fara badan waa lacag ka badan $6 milyan oo aan ahayn sanad keliya laakiin dhowr sano ahayd oo 3 hay-adood ay kala siiyeen wasaaradda caafimaadka UNICEF UNFPA iyo World Vision marka hay-adahani ma sharci bay jabiyeen baa la dhihi karaa marka la eego dee xeerka maaliyadda iyo nidaamka maaliyadeed hadda waddan ku shaqeeya waxaan aaminsanahay inaanay ahayn 6 milyan hadda carabka ku dhufatay in ka badan oo 2 laaba ama 3 laaba inay musuq iyo nidaam xun ku baxayso Soomaaliyada maanta dawladka hadda ugu badan anigu aan qoraallaan ka sameeyayna haddana hay'adda dhaqaalaha qaranka Soomaaliya waxa weeye deeqo 140 iyo ka ziyaado miya weel baan ku talagalay xanuunkan COVID-19 waxa kamida malaayiin oo dowladaha kan mucaawanada Soomaaliya siiyeen loogu talagalay inuu dariiq kasta mareeyay la dagaalanka xanuunkan lagu samaynayo waxaan marnaba sheekayay haddii aan lacagaha si toos ah loo maamulo 6 milyan inay noqonayso peanuts waxaan macno lahayn su-aasha haddaan ku soo noqdo waxa weeye muxuu yahay iyaga iyo dowladda hadda sharciga ay ku heshiiyeen in badan baa waxay ku shaqaynaysaa Soomaaliya mucaawanadii siin jirtay markii aan miisaaniyadiba jirin oo humanitarian reasons ay wuxuu marinaysay dariiqii ama xawaalada Soomaaliya ama jeebka ku soo qaaday waqtiga imika isbedelay waa maxay cilaaqaadka iyo agreementka ka dhaxaysa hay'adda iyo dowladda kuma sheegi karo waxaa jirta Soomaaliya transition bay ka soo baxday in badan waxaa laga yaabaa in dowladduba la hor fadhiisan oo loo oran sidii aad sharci u dhaqmaysay maanta looma dhaqmayo sharciga ma ogola sharcigu haddii uu baarlamaanku ansixiyey markii hore saan u dhigeen kugu noqday inaan lacag dowladda loogu talagalay budgetka si ka baxsan loo maamulo markaa sharcigii bay ka hor imanayaan laakiin sharcigaasu ma jira hadda waa in la xaqiijiyaa marka hore Soomaaliya waxay haatan ansixisay sharciga maaraynta maaliyadda kaasi oo qodobkiisa 38 uu dhigayo in dhammaan deeqaha caalamiga ah lagu daro miisaaniyadda dalka laakiin sharcigaasi waxaa la ansixiyey 25 bishii December ee aynu soo dhaafnay
example iyadoo kooban soo qaadaynaa Soomaaliya waxaa la yidhaahdaa bilyan iyo ka ziyaada lagu bixiyaa humanitarian ama 2 bilyan baa lagu bixiyaa mucaawano horumar iyo isugu jirta maxaan ku idhaahdaa humanitarian assistance dadka masaakiinta dhibaataysan lagu quudi lahaa Soomaaliya haddii la sanadooda 2 bilyan soo gelayso lacag ama ka muuqato Soomaaliya dadkeeda iyo sida horumarkeeda iyo nidaamka iyo intaasoo malyan oo qof oo 3 malyan baa shirina xiriq xogtimaanta ku jirta mashirinka lagu maalintii lagu quudaa 2 bilyan noqotay miya marka xisaabta haddii doon xisaab caadi in la sameeyo waxa weeye inay dawladdu lafteedu noqoto tii lagu dayan lahaa marka hore laakiin maxaa yaala laba qaabo isma qaado haddii aan tii dawladda gacanteeda soo gashay si fiican loo maamulahay tii banaanka loogu qaybiyeen hadda waxaad og tahay in aanayna xisaab fiican iyo nidaam fiican midna aan lagu dhaqmahayn hanti dhowraha qaranka maxamed maxamuud cali afgooye waxa uu ugu baaqay hay'adaha deeqda bixiya inay joojiyaan koontooyinka gaarka ah ee ay lacagaha ku shubayaan isla markaana miisaaniyadda dawladda lagu daro deeqaha ay bixinayaan mashaariicda ay ku bixinayaanna la diiwaan geliyo warbixin iyo baaritaan maaliyadeedna la marsiiyo waxa uu ka digay in deeqaha aan nidaamkaasi marin ay khatar ugu jiraan in la musuqmaasuqo bal waxaad wax yar sharaxdaa sharciga uu ku shaqeeyo xafiiskan hanti dhowrkeed madaxda ka tahay adduunka maanta aynu ku noolnahay Haarun horumarka dhaqaalaha waxa asaas u ah abuurista fursado maalgelineed iyo isla xisaabtanka hay'adaha dawladeed marka la doonayo in dal la maalgeliyo ama la taageero waxa lagu qiimeeyaa sida shuruucdiisu ula jaan qaadi karaan nidaamka casriga ah ee maamulka dhaqaalaha ee adduunka iyo sida isla xisaabtanka ugu shaqeeyo dalkaas iyo sida ay u sugan tahay madax bannaanida hay'adaha korjoogtay dhaqaalaha dalkaas sharcigan hanti dhowrka ee aan hadda ku shaqeyno waa sharciga la sameeyay 1972 ilaa waqtigaas maamulka dhaqaalaha dunida iyo shuruucda la xiriir wax badan ayaa iska bedelay sidaan ognahay waxaa jira hindisi sharciyeed hadda yaala oo soo maray geedi socod aad u dheer iyo aqrin dhowr ah oo labada aqal ee baarlamaanka ah wuxuuna hindisi sharciyeedkaas hadda hor yaala golaha shacabka oo aan rajaynayno inay ansixiyaan si madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu u saxiixo Haarunow in badan ayaan maqlay siyaasiyiin iyo falanqeeyayaal dhaqaale oo ka hadlaya sharciyo uu ka mid yahay sharciga hanti dhowrku anigoo dhammaantood aragtidooda xurmo weyn u haya ayaa waxaan tilmaami lahaa in sharciga hanti dhowrka aan loo isticmaalin hub siyaasadeed si loogu gungaaro ujeedada wanaagsan ee sharciga hanti dhowrku u leeyahay dalka Soomaaliyeed galka baaristu waxa uu la xiriiray hay-adaha UNFP iyo World Vision oo aan ka soo jawaabin codsigii waraysiga ee aynu u gudbinay hay-adda UNICEF oo ka soo jawaabtay codsigii galka baarista waxay sheegtay in arrintan uu baaritaan ku hayo hanti dhowraha qaranka xilliganna aysan wax hadal ah ka bixinayn galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee ANSOM waxaana ka helay jawaab qoraal ah oo odhanaysa sidan howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaa ka go'an taageerista hay'adaha dalka taageeradaasi oo dhowr qaab leh oo ay ku jirto mid maaliyadeed oo lagu bixinayo adeegyada halbowlaha u ah dadka Soomaaliyeed si adag ayaan u qaadanaa wixii takrifal ah ee lagu sameeyo taageerada maaliyadeed waxaan filaynaa baaritaan lagu sameeyo wixii eeda ah ee la xiriira wax istaba-marin xilligan qaramada midoobay waxay xiriir la samaysay dawladda Soomaaliya si faham dheeraada looga helo baaritaanka dhawaan lagu sameeyay dhacdadaas qaramada midoobay waxay soo dhaweynaysaa sida Soomaaliya ay uga go'an tahay si hufidda nidaamka si looga hortago wax kasta oo musuqmaasuq ah waxaa si gaar ah dhiirigelin u leh ansixinta sharciga maareynta maaliyadda ee 2019 kaasi oo qoraya abuuritaanka qasnad dhexe si tayaysan loogu maamulo hantida dadweyne kaasi oo sidoo kale ay ku jiraan tallaabooyin ogolaanaya daahfurnaan iyo xisaabtan dhammaan saamilayda tashiilaadka dadweyne wax ugu qabta mujtamaca iyo dhismaha kalsoonida shacabka qaramada midoobay waxaa ka go'an inay u hoggaansanto sharciga maareynta maaliyadda ee 2019 sidaasi waxaa qoraysay jawaabtii aynu ka helnay howlgalka qaramada midoobay ee ANSOM barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh
nabadgelyo. mahadsanid haaruun macruuf oo inoo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka galka baarista.